daawadayaal soo dhawaada maxaa ka soo kordhay dadka Israa'iiliinta ee ka qaxaya gudaha Israa'iil ee Yurub iyo Mareykanka aadaya maadaama dagaalka uu sii xoogeysanayo. Dowladda waddanka Russia waxay sheegtay in ay garanayso halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha cusub ee ruuxiga ah ee waddanka Iran. Dowladda Iran ayaa duqeysay markab shidaal qaada oo waddanka Qatar laga leeyahay. Sidoo kale Iran waxay duqeysay keedka shidaalka ee garoonka diyaaradaha ee waddanka Kuwait. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa Israa'iil waxay leedahay tan iyo markii dagaalkan hadda socda uu bilowday 6,000 oo qof ayaa naga dhaawacmay, laakiin dadka madaxa bannaan waxay leeyihiin 11,000 ilaa 12,000 oo khasaare ah ayay Israa'iil qabaan. Xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe khasaaraha dalalka Khaliijka gaarayana si gaar ah ayaan u dul istaagi doonaa. haddii aad saaxiibayaal nagu cusubtihiin nagu soo biira. maanta waa 1 bisha Abriil 2026. marka hore barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa dadka Israa'iiliinta ayaa bilaabay in ay isaga baxaan gudaha Israa'iil iyaga oo ka gudbaya xadka waddanka Masar si ay halkaasi uga sii raacaan diyaarado aadaya Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. Dhammaan garoomada gudaha Israa'iil ku yaala ayaa wada xiran, isla markaana dowladda Iran ayaa la wareegtay hawada Israa'iil. Diyaaradihii xitaa Israa'iiliintu ay lahaayeen ayaa laga qaaday kol hore waddanka Iran oo la geeyay dalal Yurub ka tirsan iyo Mareykanka si aysan Iran u burburinin. marka hawadii Israa'iilna waxaa la wareegtay Iran. garoomadii diyaaradaha wax shaqeynaya ma jiro, kulligood way wada burbursan yihiin. saldhigyadii ciidamada sidoo kale dadkii rayidka waxay leeyihiin muddo bil ah ayuu dagaalkan socdaa. Iran waxay isku diyaarisay muddo bil ka badan in dagaalkan ay sii wado ilaa yoolkeeda ay ka gaarayso. xilli sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iran ay saacadii lasoo dhaafay sheegeen in ay u argudi doonaan qof kasta oo dagaalkan kaga geeriyooday, xitaa hogaamiyahooda ruuxiga, taasoo ka dhigan marka in ra'iisul wasaaraha Israa'iilna uu halis uu ku jiro oo Iran ay doonayso inay ka argudato. marka maanta waxaa cusub saaxiibayaal in safafkii ay dheeraadeen oo dadkii ay isku sii sheegeen oo la yiri halkan joogid ma lahan, xaaladdu way sii adkaanaysaa. dadkii marka safafkii way sii dheereeyeen oo taas macnaheedu waxaa weeye in dadka reer Israa'iil oo dhan ay doonayaan inay ka baxaan deegaanadaasi. xilli dabcan xuutiyiinta dagaalka ay soo galeen, Xisbullah ay soo galeen, Israa'iilna ay ku jiraan. Trump iyo Netanyahu ay qiranayaan in xaaladan oo kale aysan horey u sii arkin oo hadda xaaladdu ay ku xumaanayso. bal qaybta hoose aragtidaada noogu reeb saaxiibayaal. qaxaasi iyo barakacaasi ka bilowday gudaha Israa'iil xilli sidoo kale Iran ay xalay ay u digtay dhammaan shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda ee Mareykanka laga leeyahay sida Google-ka iyo sidoo kale Tesla-da iyo Meta-da. waxaasoo dhan waxay tiri waa inaad ka baxdaan wadamada Khaliijka. Iran waxay doonaysaa inay ka argudato xarumihii dawada ee Israa'iil ay ka weerartay. marka iyana waxay tiri annaga xarumaha dawada ma weerarayno, laakiin kuwa teknolojiyadda ee Mareykanka iyo Israa'iil ku xiran ayaanu duqeynaynaa. dhinaca kale daawadayaal aynu eegno dowladda Russia waxay tiri waanu garanaynaa halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha ruuxiga ee cusub ee waddanka Iran. hogaamiyaha sare ee ruuxiga ee waddanka Iran Mojtaba Khamenei ayaa ku sugan gudaha waddankiisa, balse wuxuu ka gaabsanayaa inuu fagaaraha uu ka soo muuqdo sababo la xiriira amniga ayaa lagu yiri war ka soo baxay laga soo xigtay weeye safaaradda Russia ama safiirka Russia ee waddankaasi jooga. Mojtaba Khamenei ayaa aabihii bedelay Ayatollah Ali Khamenei oo la dilay markii Israa'iil iyo Mareykanka ay weerareen waddankaasi. tani xilligaasi banaanka ma uusan u soo bixin, warqada ayuu soo dirayay dabcan xaaladda amniga awgeed iyo in la duqeyn karo. marka ruushka wuxuu leeyahay ninkaas saaxiiba ayaanu lanahay, waanu garanaynaa meesha uu joogo, isla markaana ma doonayno inaan hadda meesha uu joogo iyo arrimahaasi ka hadalno. ninkaasi waa nin waddankiisa jooga u dagaalamaya waddankiisa ayay dadkii safiirkii Russia uu yiri. marka saaxiibayaal arrintaas maxay ka dhigan tahay ruushka inuu garanayo halka uu joogo, laakiin ogow ruushka waa saaxiibka koowaad ee waddanka Iran. ma isku sii haleyn kartaa Iran oo ma dhihi kartaa waa saaxiiba ayuu leeyahay, mise waxaad is leedahay hogaamiyuhu waa inuu si dhaba amnigiisa uga taxadaraa. dhinaca kale aynu fiirina saaxiibayaal markab weyn oo nooca booyadaha shidaalka qaada ah oo waddanka Qatar ay leedahay ayaa la duqeeyay oo Iran ay duqeysay. markabkan waxaa lagu dhuftay 3 gantaal oo nooca cruise missile la yiraahdo oo Iran laga soo tuuray. wasaaradda difaaca ee waddanka Qatar ayaa xaqiijisay in madaafiicdaasi 2 ka mid ah la qabtay, midna uu ku dhacay tankarkaasi. 21 qofood oo saarnaa markabkaasi ayaa si nabad ah looga soo saaray iyagoo aan wax dhaawacyo ah la kulmin sida ay wasaaraddaasi ay sheegtay. marka Iran markabkaasi oo kaliya ma aysan weerarin
sidoo kale Iran waxay weerartay xarunta keedka shidaalka ee garoonka diyaaradaha ee wadanka Kuwait waana markii labaad oo Iran ay dabcan weerarayso xarumaha keedka shidaalka ee garoonkan Kuwait garoonkan inuu shaqeeyo waxa u dambeysay dagaalka intuusan bilaaban ka hor tan iyo xilligaas ma shaqeeyo laakiin xarumaha keedka shidaalka xarumaha Mareykanka ciidankiisu ay isticmaalaan waxaasoo dhan Iran cagtay marisay marka Iran Kuwaitna dhibkaasi u geysatay oo xaruntii keedka shidaalka qadarna dabcan markabkaasi ayay ka gubtay dhinacan iyo Israel saaxiibayaal aynu markan u talaabno Israel waxay leedahay wasaaraddeeda caafimaadka tan iyo markii dagaalkan uu bilowday 6286 qof ayaa naga dhaawacmay 100 qof kaliya shalay ayaa cisbitaalada la dhigay sidoo kalena dhowr boqol oo kalena dabcan toddobaadkan oo kaliya ayay Iran dhaawacday waxaa ka horeeyay 4 askari oo Israa'iiliin ah oo lagu dilay koonfurta wadanka Lubnaan oo kooxda Lubnaaniyiintu ay dileen marka Israel kaliya dagaalkan markii uu bilowday waxay qiranaysaa cidda ka dhaawacmay ma qiranayso cid ka geeriyootay arintaasna waxay keentay shaki weyn oo ah Israel 11,000 oo dhimashay dhaawacay qabtaa laakiin way qiranaysaa oo waxay leedahay wax naga dhintay ma jiro Kuwait marka fiiriso Lubnaan ilaa iyo 10 askari wax kor u dhaafaya laga dilay lagana dhaawacay laakiin intaas tirada kuma darsanayso intaas oo dhimasho ah ma sheegayso marka maxay kula tahay ma sida la sheegayo ba oo 11,000 ilaa 12,000 ma dhimashada dhaawac ay tahay mise cid ka dhimatay ma jirta batan iyo dagaalka markii uu bilowday qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag hayloobin inaad dabcan qodobadii aanu ka soo hadalnay aad eegtid oo aad ka soo hadasho bal markan waxaan u galaynaa saaxiibayaal qodobada kale ee barnaamijkeena bal aynu eegna marka saacadii la soo dhaafay Iran dabcan duqeymo xoogan bay fulisay maxaa khasaare ah oo duqeymahaasi ka soo gaaray qolyahan reer Israel la yiraahdo aanu ka hormarno ugu yaraan 25 qof ayaa waxa ay ku dhaawacmeen guud ahaan Israel magaalooyinkooda tan iyo xalay oo Iran ayaa si adag u duqeysay xarumaha muhiimka ah ee ku yaala Israel dabcan mid kamid ah xaaladiisu waa qatar baa yiri kuwa kalena dabcan xaaladoodu aad bay u hooseysaa dabcan waxa la yiri ilmo yaro 10 sano jira iyo mid kale oo 12 sano jira ay Israel warinaysaa laakiin waxa la isweydiinayaa laftirkoodu in ka badan 300 ilaa 400 oo arday ah oo iskuul ku sugnaa oo ay duqeeyeen arinta ayaa laftirkeeda la isweydiinayaa marka saacadii la soo dhaafay xalay ilaa iyo saaka 25 qof ayaa Israel gudaheeda dabcan lagu dhaawacay oo Iran xalay waxay qaaday weerarkii ugu xooganaa oo Tel Aviv ay la kulanto tan iyo markii dagaalkan uu bilowday dabcan weerar kale way jireen magaalooyinka kale ka dhaceen sida magaalooyinka nuclearka u yaalo kuwa dabcan safaynta saliidii magaalooyinkaas laakiin Tel Aviv xalay weerar burburin ballaaran ayaa lagu qaaday waana tan ay saaka sheeganayaan Israel 25 qof in ay ka dhaawacmeen walow warbaahinta madax banaan ay leedahay Israel haddii 25 qiratay 100 ayay dabcan gaarayaan dabcan waana tii shalay 4 askari Israel ay qiratay in looga dilay koonfurta wadanka Lubnaan oo xisbiga halka joogay ka dileen marka la isku soo dardaro shalay xilligan oo kale ilaa iyo saaka barqadii ilaa dabcan 12 subaxnimo haddii la isku dardaro Israel dad 200 kor u dhaafaya ayaa ka dhaawacmay askarta geeriyootayna tirada way ku jirtaa bal waanu sugi doonaa waana taas mid keentay dabcan in dadka Israa'iiliintu inay bilaabaan inay isaga baxaan gudaha Israel iyagoo xadka Masar dabcan ku ordaya oo doonaya inay halka uga sii baxaan marka xaaladdu meeshaas ay maraysaa aynu eegno marka xuutiyiintii reer Yemen iyaguna wacdar ay dhigan Israel marka kaliya Iran lagama weerarayo Hezbollah waad aragteen Lubnaan bay ka soo weeraraysaa xuutiyiintuna dagaalka si adag bay ugu jiraan marka kooxda xuutiyiinta reer Yemen ayaa maanta dhowr xabo oo gantaalada ballistic missile-ka waxa ay ku garaaceen koonfurta Israel xarumo taliska sirdoonka militariga iyo sidoo kale nidaamka difaaca hawada ee Israel uu yaalo war-saxaafadeed ka soo baxay xuutiga reer Yemen oo la sii mariyay warbaahintooda ee Masarah TV yiraahdo ayaa waxa laga akhriyay in dabcan dambiyada Israel ay ka geysatay Lubnaan ka geysatay Gaza ka geysatay Yemen in argudashadoodu ay ahayd ilaa Iraq iyo Falastiin dabcan dambiyadaasi ayaa laga argudayaa beejri waxaana dabcan si adag ay u duqeeyeen xarumahaasi muhiimka ah ee ka soo hadalnay Israel marka hadda ma waxay iska difaacdaa Yemen ma waxay iska difaacdaa Lubnaan ma Iran bay iska fiirisaa ma Gaza iyo Lubnaan Falastiin bay iska fiirisaa
waana taas midda keenaysa in madaxdii Israa'iil maalintii dagaalkan uu bilowday oo ay dhulka hoostiisa galeen ilaa iyo maanta oo dagaalka uu socdo 5 toddobaad ay dhulka hoostiisa ku jiraan, taasoo marka muujinaysa in ay hadda dagaalkii ay fahmayaan in guuldarro mooye aanu wax kale uusan u keenin. aynu eegna marka guuldarradaasi Israa'iil hadda ay fadhiyaan Israa'iil oo keliya ma ahan. bal markan saaxiibayaal aynu fiirino odaygii Donald Trump ahaa ayaa markii ugu horeysay waxa uu khirtay guuldarrada dagaalkan hadda uu kula jiro wadanka Iran, waana dabcan arrin muujinaysa in Trump uu hadda ka shalaynayo dagaalkaasi. tusaale ahaan wariye ayaa waxa uu weydiiyey Trump qiimihii shidaalka maanta wuxuu gaaray $4, maxaad uga jawaabaysaa? Trump ayaa ku jawaabay waa run, laakiin qofna hadda naguma soo weerari doono. hubka nuclearka ayuu uga jawaabay isagoo dabcan ka waday hubkii nuclearka ee wadanka Iran ayaanu burburinay. wariyihii ayaa mar kale waxa uu weydiiyey laakiin dadka Mareykanka waxay dareemayaan buu yiri kororka qiimaha tamarta. Trump ayaa mar kale ku jawaabay waxay sidoo kale dadka Mareykanka dareemayaan buu yiri haddana ammaan badan bay dareemayaan. isla wariyihii mar kale ku celiyay wuxuu yiri maxay tahay qorshaha lagu dhimi karo qiimaha shidaalka ee hadda kor u kacay iyo tamarta iyo walwalkan dadka Mareykanka gudihiisa ka haysta? Trump wuxuu ku jawaabay waxa aan sameynayno waa inaan ka baxo Iran si wax walba ay ugu soo noqdaan sidii hore, taasoo macnaheedu yahay dagaalkan Iran markaan ka baxo ayay wax walba si caadi ah ku soo noqonayaan. marka Trump guuldarradaasi buu qirtay, wuxuu yiri ilaa dagaalkan aan ka baxo hal ma imaanayo, waan ogahay qiimaha shidaalka wuu kordhay. 50 gobol oo Mareykanka gudihiisa ku yaala ayaa banaanbaxyo ay ka socdaan oo Trump looga soo horjeedo. arrintaasina xaalka ayay dabcan ku sii kordhinaysaa ninkan Trump yiraahdo, waana dabcan arrinta keentay in Trump uu hadda isweydiiyo in xaaladaasi jirta awgeed ay adag tahay wax walba inay sidoodii ku soo noqdaan. marka isagoo kaliya ma ahan, Israa'iil baa horay u cabatay oo gacanta kor u taagtay. bal qaybaha kale saaxiibayaal aynu eegno ee barnaamijkeena. warbaahinta gudaha qaaradda Yurub gaar ahaan kuwa Ingiriiska ayaa ka waramaya isla markaana qoraya in dowladda Russia ay diyaarado daroon ah ay u soo dirayso wadanka Iran si ay dabcan uga qayb qaadato dadaalada Iran ee dabcan ka dhanka ah ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil sida ay sirdoonka reer galbeedku ay sheegayaan. wargeyskan aan hadda sheekadan ka soo xiganayno waxa la yiraahdaa The Independent, wuxuu ka soo baxaa wadanka Ingiriiska. waxa uu ugu horeynba u leeyahay Russia ayaa dabcan ku dhow inay dhamaystirto wajiga ay ugu soo dir wajiga koowaad oo ay ugu soo dirayso wadanka Iran diyaarado daroon ah, daawo iyo sidoo kale cunno oo Iran la soo gaarsiinayo si ay dabcan Iran u sii wado dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda wadanka Iran iyo saraakiil Russia jooga ayaa waxa ay bilaabeen ama dowladaha Russia iyo Shiinaha ayaa waxay bilaabeen buu wargeyskan leeyahay in ay si qarsoodi ah uga doodaan sidii diyaaradahaasi daroonka ah, daawadaasi iyo cunnadaasi lagu soo gaarsiin lahaa wadanka Iran xilli sidoo kale Israa'iil iyo Mareykanka ay bishan dabcan ay si adag u duqeynayaan wadankaasi. xukuumadda Moscow ee wadanka Russia waxa ay horaantii bishan March ay gaarsiisay wadanka Iran daawo iyo sidoo kale qalab kale oo cunno oo loogu talagalay dowladda wadanka Iran. arrintaasina waxaa loo soo mariyay ama daawadaasi iyo qalabkaasina waxaa loo soo mariyay baa la yiri wadanka Azerbaijan sida ayaa uu ku soo gaaray wadanka Iran. Mareykankana ma uusan duqeynin isla markaana kama uusan hadlin. Russia waa mid ka mid ah dowladaha sida weyn u taageersan ama xiriirka ula wadaaga wadanka Iran. sidoo kale dagaalkan hadda socdana kaalinta Russia ay ku leedahay waa inay dabcan tilmaamto xarumaha muhiimka ah ee sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale meelaha ciidanka Mareykanka lagu tababaro ama ay degan yihiin ee bariga dhexe. haddaba madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo Russia ay ishayaan ayaa hore u sheegay in Russia uu dabcan uu siinayo Iran waxa loo yaqaano sirdoonka. arbacadii la soo dhaafay Moscow ayaa sidoo kale waxa lagu eedeeyay inay kor u qaaday taageeradeedii dhinaca sirdoonka ee Iran ay siinayso. maxay ka dhigan tahay haddaba isku soo dhawaanshahan Iran iyo sidoo kale Russia? dabcan Iran iyo Russia dagaalkan hadda bilowday oo kaliya aad isugu soo dhawaanin, xiriir waxa ka dhaxeeya iskaashi wax wadaagid iyo sidoo kale waxa ka dhaxeeya in ay dhinaca dagaalada iska kaashadaan. tusaale ahaan markii dagaalkan Russia uu ku qaaday wadanka Ukraine uu socday diyaaradaha shahiidka loo yaqaano ee daroonka ah ee Iran ay soo saarto
oo kumanaan xaba ah ayaanu ognahay in Russia uu iibsaday isla markaana dagaalka wadanka Ukraine uu uga qayb qaatay sidoo kale diyaaradahan shahiidka loo yaqaano waxay ka qayb qaateen dagaaladii waxbasaasida ee saldhigyada Mareykanka ee Ukraine iyo sidoo kale Europeelaha ku yaala marka Iran abaalkaasi baa hadda loo gudayaa iyana diyaarado drone ah oo Ruushka uu soo saaray iyo kuwa Iran ay soo saartay baa la isku darayaa si ay Iran ay dagaalkan ay kaalin uga qaadato marka Russia heerkaas buu marayaa hubkaas dabcan ilaa hadda lama sheegin halka la soo marinayo laakiin dawadii horaantii bishan loo soo diray wadankan Russia Azerbaijan buu soo maray Azerbaijan kadib uu ka soo gudbay sidaas ayaa wuxuu ku soo galay wadankan la yiraahdo Iran marka hadda lama yaqaano hubkaasi meesha la soo marin doono iyo cidda soo qaadi doonta bal qaybta hoose saaxiibayaal nagula wadaag sidee baad u aragtaa in Russia diyaarado drone ah iyo sidoo kale dawo iyo cunno oo u soo dirayo wadanka Iran xilli Iran ay dagaal adag ay ku jirto saaxiibayaal qofka saaxiibkaaga ah ama wadanka ee dabcan xiriirka kala dhaxeeya ee saaxiibnimada aad wadaagtaan waxaad garanaysaa xilliga dagaalka aad ku jirto oo dabcan lagula dagaalamayo sidaasi horey baa loo yiri marka waa sababtaas baa la yiri sababta hadda keenaysa in Iran taageero xoogan ay ka hesho dhinacan iyo Russia taageeradan waliba tii hore ee dawada iyo cunnada way ka duwan tahay oo diyaarado drone ah ayaa loo soo dirayaa wadankan la yiraahdo Iran waayahay waan sugi doonaa bal hubkaasi iyo diyaaradahaasi meesha uu soo mari doono ma Azerbaijan baa lagu celin doonaa oo uu soo mari doonaa ma meel kale dabcan la soo marin doonaa ma wadamada waaweyn ee dariska la ah wadankan Iran ba la soo marin doonaa sida Iraq oo kale Turkiga Azerbaijan iyo dalalkan kale waan sugi doonaa daawadayaal galabta barnaamijkan halkaas ay noo joogo haddii aad doonaysid qodobo kuwan la mid ah iyo barnaamijyo kale fadlan subscribe saaro waxaanu idin leenahay galab wanaagsan